tababar la isugu keenay haween tiro badan oo ay soo qabanqaabisay hay'adda wadaniga ah ee fadhigeedu yahay magaalada Boorama ee marka la soo gaabiyo magaceeda loo yaqaano AWSG oo kaashanaysa hay'adda caalamiga ah ee IOM ayaa maanta ka furmay xarunta ururkaasi. tababarkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxa furitaankiisa goobjoog ka ah saraakiisha ugu sareysa ee hay'addaasi AWSG iyo wakiil Solnak u fadhiya gobolka Awdalla. مسؤولك ugu sareeya ee hay'adda wadaniga ah ee OSIG Yaasiin Qalinle oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in aqoon isweydaarsigan muddada kooban socon doona uu halbowle iyo lagama maarmaan u yahay sidii loo yareyn lahaa khatarta uu bulshada ku hayo cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS. waxa kale oo uu xusay in haweenku ay yihiin lafdhabarta bulshada isla markaana ujeedada tababarkani ay tahay sidii bal ay haweenku u gorfayn lahaayeen tacadiyada loo geysto ee la halmaala alaabana ku dhaca haweenka oo ah cudud lagama maarmaan u ah horumarka bulshada isla markaasina ay taasi sababto in cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS uu siyaabo badan u faafo. cudurkan HIV/AIDS wuxuu hoos gelayaa mowduucyo fara badan baa hoos yimaada. laakiin ka maanta aan ka hadlaynaa waxa weeye tacadiyada galmoodka la xidhiidha ee loo geysto dumarka. waxaad isla ekaynaysaan oo aad aad u lafaguraysaan doorka baaxadda leh mugga leh iyo miisaanka leh ee dumarku ay ku leeyihiin bulshada. masalan waa macallinkii waa daryeelihii waxa weeye wax walba qoyska iyadaa waa bulshada iyadaa waa waa xubintii taranka ee bulshada. waa qodob muhiima markay halkaa joogto waxaynu barbar dhigi xaaladda dumarka ee waqtiga hadda lagu jiro. sidoo kale marka la gaadho heer qaranna dastuurkii qaranku dhigtay inay iyadana ka muuqato maqaamka ay dumarku ku leeyihiin bulshada isla markaana in la ekeeyo oo lagu qoro ciddii u gafta wixii lagu qaadi lahay. wakiilka hay'adda Solnak Abdulqaadir Shaashka oo isaguna madashan ka hadlay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in khatarta cudurka HIV/AIDS ay tahay mid aan la iska indhatiri karin isla markaana ay haweenku yihiin kuwa u nugul inay si fudud masiibadaasi ula kulmaan. waxa kale oo carabka ku dhuftay in looga baahan yahay haweenka inay isku duubni muujiyaan isla markaana iyaga oo hal mid ah ay wajahaan khatarta cudurkaasi. si kastaba ha ahaatee tababarkan muddada 2 maalmood ah ee uu socdo ayaa looga gun leeyahay inay ka soo baxaan macluumaad tiro badan oo loo isticmaalo sidii khatarta cudurkani looga yareyn lahaa bulshada. waxa kale oo qorshaysan oo la doonayaa inay haweenkaasi soo saaraan xogo muhiim ah iyo baaqiyo ay ku shaqo galaan laamaha heer dawladeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. tababarkan oo ah tababarada ugu muhiimsan ee looga dan leeyahay in bulshadu ay noqoto mid la yareeyo khatarta cudurka HIV/AIDS isla markaana mustaqbalka dhow iyo ka fogba u gogol xaadha sidii ay u noqon lahayd kuwa ka fayo masiibada cudurkaasi ayaa waxa uu maanta u qabsoomay haween 15 ah iyada oo ay maalgelinta bixinayso Global Fund. Abdalla Ali Yusuf, Hon Cable TV, Boorama.